اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم رمضان كريم. soo dhawaada daawadayaal, halkani waa Uko Media oo aad ugu barateen barnaamijyo xayeysan. maantana waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa fadwooyin la yaab leh oo ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan. bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan sanad waliba baraha bulshada waxaa soo gala muujado khilaafaad ah iyo fadwooyin iskhilaafsan. fadwooyinka la yaabka leh ee la soo baxeen waxa ay ka mid yihiin fadwooyin aan qaadan karin maskaxda iyo aqliga saliimka ah. waxaan idin soo gudbin doonaa fadwooyin la yaab leh oo aan idin kaga soo xulnay fadwooyinkaasi. fadwada ugu horeysa waa burka macaan oo lagu sheegay inuu yahay xaaraan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waa mid ka mid ah fadwooyinka la yaabka leh ee bisha barakeysan ee Ramadaan ku saabsan. waa fadwo uu soo saaray sheekha Jazaa'iriga ah ee lagu magacaabo Maxamed Ali Farkuus. fadwadaasi oo uu ku xaaraantinimeyay burka macaan bisha barakeysan gudaheed, taasina waxa uu ku sheegay inay tahay waxyaabaha bidcooyinka ee lagu soo kordhiyay bisha Ramadaan inay ka mid tahay. taasi waxa uu ku sheegay inay tahay waxyaabooyinka bidcooyinka ee la soo kordhiyay bisha Ramadaan inay ka mid tahay, taasi oo aan u keenin wax daliil ah. markaasi ayuu soo daliilsaday aayadani: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. fadwada labaad waxay tahay cunista sambuuska oo xaaraan ah. sambuuska oo ah waxyaabaha ugu cunista badan bisha barakeysan ee Ramadaan. fadwada la yaabka leh ay soo saaraan ururada qaar. fadwadii lagu mamnuucay sambuuska ee soo saareen xarakada Al-Shabaab ee ka dhisan dalka Soomaaliya, taasoo ay ku yiraahdeen sambuusku waxa uu leeyahay 3 geesood shabaha calaamada Kiristaanka. fadwada saddexaad waa cunista xanjada oo banaan. marjaca shiicada ninka lagu magacaabo Ali Sistani kaasi oo soo saaray fadno lagu baneynayo cunista xanjada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. fadwada afraadna waxay tahay kurugushada ama isdhexgalka rag iyo dumarka oo banaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waa fadwo la yaab leh oo uu soo saaray daaciga u dhashay Morocco ee lagu magacaabo Abdulbari Zamzami. waa fadwadiisa waxa uu ku sheegay in isdhexgalka rag iyo dumarka soonka jabinayn xitaa haddii si ogaal ah isugu dhacaan. fadwada shanaad ee la yaabka badan waxay tahay cabista biyaha oo banaan soonka gudihiisa. Iiraan marjacooda shiicada kaasoo lagu magacaabo Shahiir Asadullaahi Biiraas wuxuu yiri qofkii xaraadka ka tambadiyo inta soonka lagu guda jiro inuu cabi karo biyo oonka ka goynayo. culimada kale ay shiicada ah ee ka soo saaray fadwadaasi waxaa ka mid ah Aayatullaahi Naasir oo asna soo saaray inuu cabi karo biyaha qofka xaraadka ka tambadiyo. la soco ay taxta ee barnaamijka